barnaamijkeena gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa ismiidaamyo 23kii bishii shanaad sanadkii 2019 lagu qabtay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kaasoo doonaya inuu isku qarxiyo munaasabada ay dhiganayeen culimada diinka Ahlusunna wal Jameeca. محمود عبد الرحمن وويل دليرة وهي كوحدة على الشباب ودياريين إنه اسكو قرحية مناسبة أهل السنة والجماعة كما موسيين دليرة دي وقريوتي دقالة دي أي لقلين على الشباب محمود وحالقسو ديارية مقالة البور هالكاس وقسو جايسين اسكو قرحية ومثل نبدا كو قبسين يسي حفلات وحانا لكيرميل دولات كردوسة مريبا هالكاس وكاقادين ديغانكا ولغو مقاحة حالي دوبة نور kaasoo ahaa gacansiyo ugu weynaa al-shabaab ee u fudeeyay qaraxa in la soo geliyo Gurceel. halkan waa goobtii uu doonayay inuu isku qarxiyo Maxamuud waxaana uu sharaxayaa sidoo uu ku soo galay cid hor istaagtay. wadada tan ka soo galay markaas inta la wareegto wadada xaafadan gadaasheedan soo maray asaan istaagay halkaas gabdho dhoobna gabdho agtooda istaagay عشان دمع ميشي إنا كسو قلا نينا وحوي وضع نيو أسكري ميشان لما أقله قبل لحظة لما قال كرا جوج مركزا كسو ورقت قرأ هالكاس كويا الأكتيسان استاغي قرأ أكتيس مركز استاغان عبار أن تاغنادان كسو ورقت هدنا وكسو ورقت وحان كسو قلا دينا عن كلام كسو ورقت دينا عن هدنا قبل صفنا وكسو قلا وأسكر داف والله قرأ أكتيسان اسكي فديستي عبارة ماشي فدي حالة مركي قطبدي وحي سي u socdeen ay gabagaba ay tahay oo dadkan is istaagi rabaan aan jaanis aan helay dhaxdan aad iska mar saa u socday dhaxdan saas u maray kadib dhaxdaan istaagay markaan istaagay waa joogan kala fiiri anoo socdo markino meeshii gal raba yarkad aan ku sheega wuxuu dhaynay meeshan lama ogolo gowaan qaadir raba iga leexanay marka anaga hor u soconayna ماشي عاد ugu dambeyn aad kamid halkaas ay soo halkaas ay taa haye halkaas markaan istaagay kadib anoo meeshii ma istaagayna waa socday anoo sideed u socdo ma aragtay aan mid kana ay dhahnay oo jooj meeshii lama ogolay gobaan qaadir waan dhaxsan ku sii orday haye waa ka soo wareegtay dhinac kale u wareegtay aan orday haye markaan orday badhankana aan taabtay aan meeshii markaan sii qajuu dhaha umaleena markaas meeshii saas xagee taagneed markii aad badhanka taabanaysa halkaan ka orday halkaan ordaya haye waan ku orday meeshan ku socday marka dadka aad rabtay inaad markaa isku qaraxdo xagee fadhiyeen saanay u fadhiyaan horteedaysa u fadhiyaan haye waa gartay ka marka halkaan aad ka orday halkaan ay meeshan ka orday saas aan u orday ana ordaya badhanka markaan taabtay saan ana ordaya badhankan aan hayna saas qajuu dhahay saas aan u orday محمود marna ma uusan filayn inuu ka fashilmayo qaraxan waxaana uu sheegay inuu jeedkiisu ahaa inuu la kulmo 72 xuural cayn sida uu aaminsan yahay waxaana loo sheegay in marka uu jannada tago ay gabdho xuural cayna ku soo dhaweyn doonaan heeso nin kasto mu'min ah ninka ugu yar ninka horaanta sokotooda ay sheegaan ninka ugu yar mu'min ah oo dhinta laba naag ugu dambeysay laba naag uu leeyahay moogtahay ninka shahiidkana 72 waa marka taas waa mooyeen in hadda nin qaas ku tahay ma walahan nin kasto mu'min ah dhinto waa iskale horaan laakiin shahiidnimadu ka fadla dhaanta bas marka waxa socotay 72 محمود isaga ayaa doortay inuu isqarxiyo laakiin goobta uu isku qarxinayo go'aankeeda isagu ma lahayn waxaase lagu qanciyay in goobtan ay tahay halka ugu mudan ee uu isku qarxin lahaa iyadoo loo sheegay inay joogaan dad aan muslim ahayn waxa jooga lagu dhahay nin shiici nin oo hadda ka hor wuxuu lagu dhahay nin dad badan oo dad qoyskoodu u yimid baadiyo jooga asa dadkii waxay sameeyeen neef geel ninkan karaamadiisa arkayna ay dhahan neef geel ay qaleen asay qoorta ka gooyeen qoorta markay ka gooyeen
أو حال شيخ وما مغشاها نيهو جيلي وانقل نك إسكال عنه حوده جيلي مويه وحكى مرة نفك اللي يقل من برا هذا كرامة له إنه يستاجر أسود ده يقول بإذن الله قل بإذني بإذن الله تمام بإذني جيلي سدي وده نكاس واي ولا وده مقال هذا الكسمان أنا مقال لكن صبر هانتي سالي وتصل بس maxamuud waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in jaakada qaraxa looga soo dhiibay deegaan lagu magacaabo Buula Falay halkaas oo lagu siiyay tababar kooban oo la xiriira sida jaakada loo qarxiyo kadibna uu soo aaday deegaanka Buqda Hiiraan halkaas oo ay xaaskiisa joogto waxaana uu dhigtay qaraxa gurigii uu deganaa iyadoo aysan ogeyn xaaskiisa taas oo ay dagar kale oo khatar ku galiyay nolosha qoyskiisa Buqda bilan joog gabar aan qaba meesha degneed sidaan ku joogsan u joogay kadib bil markaan soonka markii bishii soonka uu soo dhawaan soo dhaqaaq galab ay tahay soo wacay xagee joogtaa soo buq ma joogtaa hadan ku iimaanay lagu dhahay gaari yar ay yimid alaabteen soo qaatay soo bax alaabtaas diyaar gal alaabtaan soo qaaday lagu dhahay sidii aan gaari ku soo raacay boogaan yimid boogaan ka soo gudbay gaariga waa iga laabtay gaariga la hadlay soo qaaday soo isoo wadi ma koriyo habeenkii aan ka soo casheeyay waan ka soo baxay habeenkii هذا يبال ميل هاي أكتر سيحني سوحدين هذه ثلاثة عمر كيسو دوّدان كسر دقاقني كدب واحد عالبور أنسي كويبت عالبور مركان يبيده وحي عرم مع اللي يشيء هو ده بس اليوم كذا ما تصل بورصة كجرت مين أسكدي أيضا البورصة أسكي إلى عليها نحن تعبنا عنده من أوجين واحد كجرن واحد أنا أركتين كلامه مقولين أنا أركتين مقولين أوجين jaakada qaraxa ee uu dhagarqaba maxamuud watay waxa uu ku sheegay inay ka kooban tahay saddex qaybood isla markaana lagu qarxiyo laba nooc oo kala mid uu isagu qarxin karo iyo mid meel fog laga qarxin karo saddex qayb ay leedahay qayb laba dhinacaan iyo hal dhabarkaan ay leedahay halaasna waxay la egyihiin waxaan ku qiyaasaa hadda halahan ama waa mid kasta halaha Soomaaliya suntada ay ku jirto waxa ay ku jiraan ay heed kadib ayaga afhaay hadii inay ku tusaan inaad aragtan waa laga yaabaa waka taas ay markay xarkaha leedahay qaabka sida lagu masjaaka aad waay loo gashanaa dhar ahaan loo gashanaa shar ama loo gashanaa si jeeray leedahay sana loo xiranaa hagitaan way leedahay mid waa marka ay kadib qaj ay dhaxad telefoon laga soo wacaa meeshii marka maalintaas waxay ahayd telefoonka aan soo wici karin telefoon mamnuuc waa la markaas ka hor lagu dhawaaqay nin wajigu qarsaday oo ka socday kooxda al-shabaab ayaa maxamuud loo soo diray si uu ugu sawiro inuu janno galayo marka uu isqarxiyo kadib wuxuuna ku qiyaasay sababta uu wajigiisa u qarsaday cabsi uu ka qabay in la aqoonsado wax walba muddo badan wax dad u soo aqriyo la qabto arkaa u maleena wuxuu isla ninka hadii la qabto sida hadda igu dhacday amal hadii la qabto inuu ku sheega mas'uuliyadeedu arkay calaamad uu ka bixi darteed iska qarina Guruceel waa magaaladii ugu horeysay dalka ee al-shabaab ay dadka deegaanka kula dagaalamaan iskana xoreeyaan waxaana looga dilay kooxda al-shabaab horjoogayaal muhiim ah haddana waxay noqotay magaaladii ugu horeysay ee garbaduub loo qabto qof qarax ku xiran yahay kadibna laga hor istaago inuu ismiidaamiyo ismiidaamiyaha la qabtay ma aha nin deegaanka u dhashay ama laga yaqaan waxayna u ahayd Guruceel markii ugu horeysay uu yimaado waxaana hagayay dad deegaanka uu ka mid yahay ninkan Cali Dhubad Nuur Siyaad oo isna ay qabteen ciidamada ammaanku Cali Dhubad iyo ismiidaamiyaha waxa isku xiray nin magaciisa uu ku sheegay Xaaji oo ka tirsan al-shabaab kuna sugan Ceelbuur kaas oo soo diray Cali qadar lacag uu ku bedeshay inuu ku xasuuqo shacabka iyo waxgaradka Guruceel oo ay ku jirto hooyadii isaga dhashay Cali waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in isagii Xaaji uu isku xiray adeerkiis kadibna uu adeerkiis ku wargeliyay in nin qarax ku xiray yaa loo soo dhigay balse adeerkiis ku amray inuu qabto hawsha loo diray أنا مكاس مدلح بدل جوجو نين أذكر إصابعي نين أكو صباعه ويري مكاس وحان راه ويري أنا لا شقيده كبعدي مركي نكي وإصابعي وكو إصابعي دي مدة ما قصد حبري إصابعي كبعدي وحان قاس حمرة عن بلاد كي شيء
حارة سوسي يسوي هذه ما يلبى مري قدام بدن مرة ويسوي 10 مرة ويسوي 20 ودمين سياسة ونكاس أو حرير كاس أو أنكر يشقق خلا أو أركاس أو حرير أن لا يمجرو فجرت العقل $100 أو نلير ويبص عن دقل عن ربع سفر عن ربع حمر آدم ديس دابرين كأنا غني دقل حويري ولا كسوع أنا كسوع يسوق نلير حاجي كي أو بريء حاجي الله لا $100 إيجا أمره حسن الله حسن إلاي لأن أنا كنت لعبت حنا وقعت أو در إلاي دكتور كنت در وقعت در كوي در وقعت أنا لعبت وقعت سلك حاجي أسي هذا نكاس لعبت بقول كنت إيسو دراي حنكي لعبت بقول كنت إيسو دراي جول كأدو يري كورنا عليه هاي جول كأدو يري بس صاب حي من 3 صاب حي 3 4 هنشوفي habeen kiis qamiis soo galay mayran faarax cabdi waa hooyada dhashay cali dhubad waxay joogtay goobta uu wiilkeedu keenay ismiidaamiyaha waxaana uu ninka qaraxa lagu soo xiray dadka uu rabay inuu dilo kamid ahayd hooyadaasi dhashay soo korisay cali dhubad waxayna hooyo mayran hadda ku doodaysaa in wiilkeedu uu doonayay inuu iyada xitaa dilo anigii dhalay oo 10 bilo uurka ku qaaday oo 2 sano uu naaska yahay oo 3 sano kala nabarka ku siday inuu meeshaas dhigo intaan oo dhalayna oo asaga ilaahay ka soo gooyeen inuu meesha dhigo waxaan oo dhan waa joog laantan wala gurguuray waa dhax fadhida tan haye Leyla Maxamed Salaad oo xaaska u dhaxda Cali Dhubad waxay ii sheegtay in ninkeedu uu guruceel iyo 2 maalin ka hor intaan la qaban ismiidaamiyaha uuna baxay maalinkii qarax u dhaxayay salaadii subax waqtigaas oo ahaa markii uu ismiidaamiyaha doonay wuxuu ku soo laabtay 2 habeen ayuu joogay maalinta qaan uu dhacayo muxaadarada la qabanayay hameenkeedii la qaban qaabinayay hameenkii horeeyay oo soo hoyday xilliyadan kale oo imaan habeenkii ma isla joogteen habeenkii guriga ku bariyay ana suxur kariiso hameen maqaad habeenka dhaqdhaqaaqa habeenkii wax dhaqdhaqaaqa ani kuma aan arkin wuu seexday xilligii salaada subax la tukanayay uu buu naga soo tagay salaad subax markii la tukanayay salaad subax naga bax Marwa Leyla waxay sheegtay inay ka argagaxday markii ay ogaatay in ninkeedu qayb ka ahaa isku dayga weerarka fashilmay Gurceel waligay wama aan shkin hal mar oo saacadaha ilaahay kamid inuu cali al-shabaab yahay ama oo waligay oo al-shabaab la shaqeeyay xitaa hal saac oo saacadaha ilaahay kamid wama aan shakin ilaa ciidanka ay imaadaan xitaa taliyaha ciidanka markuu ciidanka askarta ay guriga noogu imaadeen taliyaha waan weydiiyay taliya maxaan dhacay oo naga raadinaysaa ma ku iri wuu su'aalo wuxuu soo xaaskeen gurigan gabadha degan batiida uu yiri haabaan ku iri ninka xaaskiisa ma tahaba uu yiri haabaan ku iri waxba ma jiraan uu qosla taliya wuxuu waxba dhib ma jiraan baaris baan wadnaa uu yiri sidaas ayaan qabardaar uga ahaa ilaa iyo xilli dambe aan maqlay asaga ayaa waa warkaas wuu cadaaday waan maleysay wax suurtagal ah ila noqon weysa wax inaba ha yaraatee suurtagal ila noqon weysa warkaas hooyo Mayran iyo Marwa Leyla waxay si isku mid ah dawladda uga codsadeen in Cali Dhubad laga cafiyo qaladkii uu galay waxaan ka codsaa oo ad fadhiya oo gacnaha hoose inay soo daayaan waxa tabaruma ayaana tabarmay inay soo daayaan dawladda sharafta ka codsaa oo hor fadhiya maxkamadda sharafta gudoomiyaha maxkamadda xeer alaaliyaha maxkamadda qaranka waxaan ka codsanaynaa bini'aadanku way qaldamaan intaan alle iyo malaa'iktiisa iyo kuwa macsuumeenta inta macsuumeenta ah way qaldamaan anaga bini'aadan ayaan qofka bini'aadanka gaf uu ka dhici karaa waxaan ka codsanaynaa inay buugan xariista u baaraan Cali Dhubad noona soo daayaan oo xorriyadiisa dib ugu soo celiyaan qoyska Cali Dhubad oo aan ku booqday gurigooda Gurceel waxa ka muuqatay duruufo adag oo dhinaca nolosha tii oo dheereed magaxuma ay ka dhex dareemayaan bulshada Gurceel maadaama qof qoyskooda kamid ah uu hago ahaa ismiidaamiyay doonayay inuu Gurceel isku qarxiyo barnaamijka Gungaar waxa uu sidoo kale goobjoog ka ahaa fursad ay nisa galmudug ku siiyaan qoyska Cali Dhubad inay ku booqdaan xabsiga taasoo kamid ah xuquuqaadka asaasiga ah ee muwaadinka soo leeyahay
maxamuud cabdiraxmaan oo ahaa ismiidaamiyaha la qabtay waxa uu waxbarashada asaasiga uga tegay dugsiga dhexe waxaana ku biiriyay al-shabaab macalinkiisii dugsiga qur-aanka halkaasoo ah meesha laga tashkiiliyey kadib aan dugsiga iska dhiganahay saa u dhiganahay dugsigii qur-aankii aan dhameeyey war labaadaan ku celiyey kadibna macalinkan al-itixaad u ahaa kadib asna meesha jihaad iyo shabaab inoo tashkiiliyey kadib sidii aan ku raacay 2014 aan raacay bishii shanaad kadibna waan soo baxanay hiiraana imaaday tababarka hiiraana ku qaatay hiiraana ka soo baxay hiiraana muddaan joognay hiiraan kadibna hiiraanan dagaalkii ugu horeeyay waxay ahayd burundiyan uu gale ana laakiin ma aan galinay taliskan joogay rigaa gale maraan weydiiyey waxa loogu sheegay maxamuud goobta lagu qabtay ee Gurceel uu doonayay inuu isku qarxiyo waxa uu sheegay in halkaasi loogu sheegay inay ka dhacayso munaasabad lagu magacaabo maalinta shuhudada oo lagu xuso halgamayaasha Ahlusunna wal Jamaaca ee geeriyooday iyagoo la dagaalamaya argagixisada al-shabaab dhusmareeb haday ka dhicin Gurceel waayo dhusmareeb hadaysan noqon Gurceel waayo labadaas meel waayo haday dhusmareeb ay ka dhigaan dhusmareeb ay ka dhigi waayaan Gurceel ay ka dhigaan meel isku imaadaan waayo waxa ku qabtaan wadaay maalin ay dhahaan shuhadadu waay ragii marka hore shabaab ay la dagaalantay ku dhaawacmay wixii ku tagay shuhadada la xusaa ay dhahaan markaas saas way u sheegay kadib waa sidii maalinta habeenkii damagaari ay soo qaaday galabnimo aan soo baxay halgaras markaas bartii uu tilmaamay meeshaas waaye ninaan dhusmareeb ka wada meesha ku geeyna ninaan ka sii wada meesha ku geeyna aadba kolba waxa lagu sheegayo waa kaas wada ismiidaamiyuu markuu yimid goobtii isku qarxin lahaa waxa ku adkaatay gelitaanka goobta waxaana dhowr mar xiriye ciidamada ammaanka goobta balse isagu waxa uu ku dooday inuu doonayo gabay inuu ka tiriyo munaasabada taasoo ahayd xeeladu doonayay inuu ciidamada ku qiyaamo si loogu ogolaado inuu si fudud ku galo goobta ninkan hadda xiran ay yimid kadib magaalada meel banaankeedu istaajiyay magaalada banaankeedu markuu istaajiyay wuxuu dhaxnay meeshan ilaa waqtiga laga gaaro meesha iska sii joog meesha sii joogay kadib xilli 3 saac ay tahay oo yimid wixii diyaar waa qalabkaas oo diyaar ku maahan soo baxo way dhahay wadadana galis meesha dan tagan isma garanayno way dhahay meesha tagay meesha markaan tagay meeshan saa u kala fiiriyay kadib meesha liigu sidii calaamada liigu tilmaamay ahayd dadaan ciidan ku wareejisnaa kadib meel aan rabo inaan ka gala lama ogolaa lagu dhawa istaagay kadib mar lisla istaago shaqada ay dhamaatay aan soo dhaxmaray kadib meesha markaan u soo dhawaaday aan ku soo cararay markaan ku soo cararaan sida leeyahay qabtay meesha leeyahay qabtay kadib markii leeyahay qabtay waxayna dadkii wixii aan wateen Ilaahay qadarkiisa mana dhicin anna Ilaahay u badbaadiyay dadkeen Ilaahay badbaadiyay waqtigiina meesha ku dhamaaday dhamma cabdixakiin mustaf daahir waxa uu ahaa qofkii koowaad ee sarkeen ismiidaamiye maxamuud kana xeliyay goob uu doonayay inuu xafladda ka soo galo waxaana uu kadib ismiidaamiyuu isku dayay inuu ka galo xafladda haddana qaybta haweenka balse isla cabdixakiin oo kor kala socday ayaa haddana is-hortaag ku sameeyey waxayna taasi ku sii kordhisay wiilkan yar ee sargaalka feejignaan iyo inuu shaki ka qaado ninkan كلمة أركين كان عبارة أصلا مرمريسان أركي إيش أنكوا هاي مرك أنتوا وركسي ولا أو هلا سعودي دغداغي سا قفكم مقتدر قوم مركو يقفكم بل وحن كذا إن كان سوق سوق وملك سعيد أنا أقول عنا يا شعب ولا وعس ولا سعيد ولا وريق ماشي أنا ولا سوق مركز كورين عند صاحب ولا جالس كي وماشي على الاستاك قبل واحد دورني كمسكين كم حكرب تاعي ده تك شعب كاي ماشي تشوف وران كن يسكن الداي عند أنا أساس سوق markaasna nin cabaar meel ku soo nasto oo hayo lugaa waxa uga taal ciid guduud axmed ciidkaasna uu qabo kale uu dhididay lagu ka dhididay nin meel ka soo kaco ila ka markaas qof magaalada joogo ilama ekeen waa gartay markaasna irtaab waa laga shakiyaan dhaa saasna u taabtay aan meeshan ka taabtay aan waxa isii boshxabad nashaati lagama hoos mariyo maxay tahay isii boshxabadka aniga duu fikir marka saas iri aan dhaasay meeshan waa laga shakiyay laabaan dhahay gaari tigniik aan dalbaday gaari tigniikada ay أنا دانيان كشكيا ماشان شوقي ماشان بال أو كان سكيلين ماشان كان عنده دولا شو علماء كهذا ساس مركو هاي أنصاص واحد يروح دغارني
waxaa dhaaqay culimadii markaasuu soo booditaankiiaan ku boodana adigu muddo 2 saac meesha isku haysanay oo soo socday waa soo nimid haddana meesha dhow baan isla nimid waa isla laabanay adigu muddo 2 saac meesha isku haysanay ka bacdi tali Cabdullaahi iyo tali Cabdinaasir oo meesha fadhiyay ayaan ugu soo baxay ma qofaad ku qabateen markaa 3 aan ku qabanay afar ninkii dambe oo markii hore sheekh la socod skuurtkiisa iyo laga sargaal ma shaki aad ku qabateen mise waxaad aragteen qarax markaas ana qiilshaba qarax waara qarax waa dareen aka marka waa ku dhiirateen soo qarax wada qabato waa ku dhiirab aniga oo naftayda markaas ma xisaabin oo kula xisaaday kale ninkan waa shacabka badbaadiga aka in shacabka badbaadiyo gaashaanle sare Cabdullaahi Cali Raage ayaa ismidaamiyaha markuu isku dayay inuu orod ku galo goobta u qabtay garbaduub isagoo caawinaya askari kale kadibna waxa dhabarka dambe ka qabtay wiilkii markii hore ka shakiyo soo xayrsaday una sheegay saraakiisha in ninkani qarax ku xiran yahay maalintaas horta waxay ahayd maalin shaqadii socotay waxay ahayd xaflad loo dhigayo degmadan saad u ogtahay waxay ahayd degmadii nimanka qawaarijda oo shabaab kow la dirtay ahayd waxa lagu dhigaa xushka shahaadadii ahlu sunna wal jamaa lagu dhigaa waxaan u maleynaa bishii shanaad ay ahaydaan u maleynaa bishii saddexaad sanadkii hore sanadkan hadda aan ku jirnay ahaydaan u maleynaa bisha 17 Ramadaan ay ahayd maalintaas shaqadii way soo dhamaatay markii dhibaatadan u dhaceysay dhibaatada Ilaahay waa naga badbaadiyay laakiin arinta markay dhaceysay shaqadii aan meesha loo yimi way soo dhamaatay amnigu wuu adkaa ninkan wuu soo gali waayay soo ku sheegaba markii yaaci dambe oo kala tagi ahaa oo soo booday ninka xakan ka soo booday aniga halkaan taagnaa halkaan markaan taagnaa culimaduna markaa maba fadhin waa meesha waaba ka istaagtay ninkan qorshihiisa wuxuu ogaaday fashil inuu ku dhamaanayo ay dhamaata arintii marka uu isceli waayay uu soo booday halkaan taagnaa yar la yiraahdo hadda aad u maleynaa in TV-yada ka aragteen oo la yiraahdo joojoole ee ana halkaan isla taagnay uu soo booday joojoole gacanta ka shafakiisay naga joog yiri marka joojoole gadaal u tuuray ninkan yarka sargaalka intuu sheegay anagu ma aanan arkay waa iyaga isku maqnaa marka uu gacanta iga tuuray joog uu yiri ninkan uu yiri uu ka dambeeyay moogta talin ku qaraxo wadaha yiri waana ku soo booday anigu waxaan aaminsanahay ninkaani badhanka inuu taaba rabay laakiin ninkan uu gadaal uga dhigay saan gadaal soo uma qaban uu ka dambeeyay moogta qabashadiisa uu la waayay markaas ana labadiisa gacmood saa u qabtay ka bacdi taliyaha yimid yarkan meenada iyo u qaabilsan tali Cabdinaasir tali ku xigeenkiina waa aha waa qabanna halkaasaan qabanay waa wada qabanaa ninkan markaas afartanadu waa qabanaa saas uga jaray arintii arin aad marka shaqadeenna guul noogu soo dhamaata tan laftirkeeda dhagar qabuhu wadana laftirkeedu guul noogu dhamaata maalin aad u farxad badan ay ahayd oo shaqadii la waday iyo xuskiina la dhigay cadawgii dadkii ayaka gacantooda Ilaahay ku sababay darteeda nagama faa'iideysano Ilaahay waa naga badbaadiyay hadda maalin guulahay ahayd oo cadawgii isku soo dayga sameeyana la qabtay maalin aad noogu weynna waa ay tahay maalin haddana degmadan quraceel aad ugu sii weynna waa ay ahayd ninkan Ilaahay waa naga baxshay meesha lagu qabtay halkaas ay ahayd ka bacdi dhagar qabaha kale asaga sheego saa lagu soo qabtay gaashaanle dhexe Cabdinaasir Manoole oo sargaalka u qaabilsan miinooyinka ciidanka ayaa markiiba isagoo isticmaalaya biisada loo adeegsado fiilooyinka korontada kala jaray aaladii isku xireeyay qaraxa taas oo ka dhigtay jaakadii mid aan qarxayn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu guuleeyay waxaan sameeyay turkiiso iyo xirneed turkiisooyinkan wax lagu jaro fiilooyinka lagu jaro waxaan qabatiyay ka tartiiba waxaan qabatiyay niyuutradii fiilooyinkii xariirsanay ee bomka telefoonka iyo isku dhiibayay wicitaankan awalum telefonkii iska jaray telefonkii markaan iska jaray hadana waxaan jaray mar labaad oo one by one oo labadooda hadii la isku taabto qaraxaasi hore ka qarxaya ilaa Britain waxay meynaysi blaaski isku gudbinaysaa qaraxaasi one by one markaan u gooyay telefonkiina aan jaray waxaan ku wareeyay iska dhaafaa haduu hadda isqarxi kara jasta isqarxiye ilaa qarxi dhamaaba waa jiray jaakadii xaadi uga siibna anako cabidinayna wali sidaas ay ahayd dhacdadii meesha ka dhacday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana nagu guuleeyay iyo ciidamada oo aad u fiirjignaayo intaasi la fiirinayo qofkan dhaqdhaqaaqiisa la socday waqtigiina aniga taliyihii iga sareeyay taliya Cabdullaahi Cabdi Raage iyo anigiiba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu kalifay inaan isugu tagno ninkii bamka siday ayadoo ay noo muuqatay bulshada iyo boobalaha meesha jooga iyo inta ummad Soomaaliyeed ku baaba'aysa meeshaas ima ku waxyeeloobay waxaan ka door bidnay inaan nafta aan leenahay anako aan midaamin
ilaahay subxaana wa tacaalaana wuu nagu guuleeyey maxamuud oo isaga laftigiisu u socday inuu maato xasuuqo waxa uu ku doodayaa in qaraxii 14 Oktoobar ee Soobe uu saameyn ku yeesho uu ku waayay saaxiibkiis qarax uu ku dhacay markaas Oktoobar Soomaaliya xilligaas uu dhacay wuxuu gabar eedada abtigay uu qaba ku dhaawacantay wiil kale oo aan isku dugsi aan ahaan jirnay madrasada aan saddex jirnay inuu ku tagay ii sheeg yar meesha jooga loo soo sheegay ii sheeg Cabdinaasir ay dhahan yarkan Arab la dhahaa leeyahay dhahay qarax magaciisa ahaan Arab nin Arab la dhahayo niyo TMkaas gaarigaas inuu wada u maleynaa leeyahay dhahay bas yar shabaab asaas uu dhahay sidoo kale nin ay qaraabo ahaayeen oo ay iskala mid ahaayeen al-shabaab ayaa lagu toogtay fagaare iyadoo lagu sheegay inuu jaajuus yahay yar aan qaraabo aan ahaa jiro magaalada gabar markaas dhow gabar guursaday kadib muddo la daba joogay inuu ninkaas Mareykanka la shaqeeyay waxaas aan ku maqlaanay yarka ila dhashta ay soo wacay marka hebel waa la toogtay wadayniyo waana tag yar Ayuub ay dhahan waa la toogtay uu dhahay waxa lagu toogay yaag baraaw meel ay dhahan gobolka Baay kamid ah lagu toogtaan shabaabna la shaqeynaa shabaab uu la shaqeynaa markii dambe waxa la Mareykanka u shaqeynaa hadda bishii saasa lagu idaacada laga sheegay uu dhahay yarka ila dhashta ay soo wacay idaacada laga sheegay Mareykanka la shaqeynaa waa la toogtay ninkii ogaa saasa lagu toogtay ninkii hebel ahaa waa la toogtay dirsan bixin isku dhaway intaasoo dhibaato iyadoo ay ka gaartay al-shabaab ayuu maxamuud isna u soo baxay inuu ismidaamiyo oo xasuuqo maato kuwa kalena uu saameyn ku yeesho noloshooda maadaama wehelkooda ama asxaabtooda u socday inuu laayo waxayna taasi ka marakaxaysaa sida wiilkan yar loo maran habaabiyey isaguna hadda wuu aaminsan yahay in la soo marin habaabiye wuxuuna jeclaan lahaa in la cafiyo horta wixii ilaahay qadara diyaaraan u ahaanay wixii wax walba qadar waaye markaan qarxa isku soo rarayba taas maalintaas inaan noolaan ay u maleynayaan ilaa hadda waan noolahay hadda tan haday igu qadar wixii dhacaan diyaaraan u ahay laakiin waxaan idin sheegay markaan inaan yaraayo nin yar aan ahaa anoo yarna dugsi madrasada aan dhigan jiray shabaab xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada oo isku howlay baarista kiiskan ayaa codsaday dhageysiga dacwadda ka dhanka labada eedeysana 3 November waxaana laga aqbalay dhageysiga eedooda toddobaad kadib maxkamadda ayaa horgeynta kadib ballaamisay fadhigii labaad ee dhageysiga dacwadda 23 November ugu horeyn gudoonka fadhiga maxkamadda ahna gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa u jeediyay labada eedeysana dacwad loo haysto waxaa si wada jir ah laydinkugu eedeynayaa inaad ka tirsan tihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedeysanaha koowaad Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin Salmaan iyo Axmed waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta naftii halige iyadoo ciidamada amnigu ay ku qabteen adigoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inaad isku qarxiso xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug oo ka socotay Guriceel 23 bishii shanaad 2019 eedeysanaha labaad Cali Dhubad Nuurasiyaad waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta sahminta adigoo sahmiye xaflad ka dhaceysay Guriceel 23 bishii shanaad 2019 isla markaana hagayay eedeysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda labada eedeysana ayaa fursad loo siiyay inay ka jawaab celiyaan eedaha loo haysto Maxamuud Maatire dambigaas lagu haysto ma gashay wuxuu yiri waa ognahay waxa ka shaqeeyo waxa maamulka shaqeeyay waa inta oo huwa anaga waa ognahay intaas oo sanad maamulka u shaqeeyay waa ognahay ninka hadda jaamacadda ka soo wadin ee aadageyn shimbiro onshe madaxaaga ayaa ku weeyay sadaraadina waa qalqalay meesha shimbiro shan keenay eeda san leeyahay anigu aad kalmari shabaabna maahi ma qacad mar raacsani kamidna maahi hadna raac ma waliga ma raac doono ninka shimbiro shaqeeyay aniga eeda san leeyahay bis xafiiska xeer ilaalinta oo isla maalinkaas jeedinayay eedda gabagabada kiiskan ayaa codsaday in lagu wada xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen labada eedeysana ee maxkamadda hortaagan waa kan xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya Cabdullaahi Buule Kamey
maxkamadda sharafka leh waxaan horkaynay cadaymo ku filan markhaatiyaalkii goobjoogga ahaa ee qabtay eedaysanaha oo isagoo ku xiran yahay fiilooyinkii ka jaray qiraalkii eedaysanaha kan kaloo labaad oo ah ninkii hagaayay oo taleefanadii ay iska waceen iyo saacadii ay wada hadlayeen hor maxkamadda horteedana ka qirtay maxkamadda sharafka leh waa yani wax mucjizo ah bani aadam intaa la eg oo wax dembiya aan kaa gelin in la xasuuq waan ku tilmaami karnaa wax kale ma ahayn waxay damacsanayeen waa xasuuq ilaahay baa ummadda ka badbaadiya sidaas darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka qur-aanka aan ku soo eedaynay si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doonaan inay dad soo aadaan maxkamaddu waa mahadsanta qareenka u doodaya labada eedaysana ayaa maxkamadda weydiisay in loo naxariisto labada eedaysana oo mid kasta ay duruuf gaara ku riixaysay ficilkan foosha xun waa rag la wada qalday cali dhubad markii aan ka soo qaado waa nin loo hanjabay oo si khasab ah kuwa ninkaa liidi cali dhubad naftiisa ayuu ku badbaadsanayay mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh dhammaantood waa rag la wada qalday waana rag wada dhalinyaro ah oo dalka mustaqbalka leh maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in ay u naxariisato ay u fiiriso sifaalaha dambiga fudeeyo maxkamadduna waa mahadsantahay heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn xukunka labada eedaysana kaga dhawaaqday magaalada Dhuusamareeb 24 November. bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal 1 maxamuud cabdi cabdiraxmaan 23 jir ah ina bishaaro cali xasan ku dhashay Saakow 2 cali dhubad nuur siyaad 46 jir ah ina maryam faarax cabdulle ku dhashay galguduud kuwaas oo xafiiska xeeraarinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin Salmaan iyo Axmed waxa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug oo ka socotay Guriceel 23 bishii sanaad 2019 eedaysanaha labaad cali dhubad nuur siyaad waxa si gaar ah loogu eedeeyay in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta una sahmiyay xaflad ka dhaceysay Guriceel 23 bishii sanaad 2019 isla markaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dood dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakada qaraxa una soo direen Guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyay goobtii xafladda ka dhaceysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubad nuur siyaad uu ka hor cadeeyay garsoorka in isagoo ka shaqeysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada Ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo Guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyay xafladii markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhaceysay Guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakada qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubad nuur siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah 1 dukumeentida ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane 2 taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedaysane 3
jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 dambiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan 2 dambiile shabaab cali dhubad nuura siyaad ay wada yihiin dambiilayaal gale dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wabilaahi tawfiiq guud ahaan barnaamijkeenni gungaar oo dhinaca farsamada iyo duubistaba ay gacan iga siiyeen cabdulqaadir ciise iyo carab cabdiweli waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno nabaadiin iyo nooli kulanti